الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقائمنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الحفل المباركة الذي نجتمع فيه اليوم بروح المحبة والإخوة لنحتفل معها بهذا المناسبة السعيدة. نشكركم جميعا على تلبية الدعوة، ونسأل الله أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير والسرور، وأن يديم علينا وعليكم بالإفراح. إلهي سبحانه وتعالى ولا مركب يمر الله سبحانه وتعالى ومحمد إنه سوء قال إن إسبوع من حفلة قيمة هي قايها بدنه. إلهي سبحانه وتعالى بن أقوم هذا نقينا وحامر كلامات أقوم هذا علينا برشوين تكردون واردين تله مامل كله أقوم هريو مامل كقولها أرمى إسلام كا إيو واردين تا أرضنا dhalinyarada quruxda badan, culummada. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro. dhammaan marti sharafta waxaa aan salaamayaa maamulka macadka nukhbatul macaarif uu horeeyo al-ustaad badri axmed cabdullaahi iyo macallimiinta dhammaan kala duwan ee inta aan waxbarashada ku jirnay nala soo dadaashay dadaalkoogii iyo maskaxdoodii si aan anagu u soo baxno ummadda nagu bixiyo. waxaan leenahay jazaaka allahu khayran min jazaa. marka labaad waxaan halkan uga wadaa salaan dhammaan ardayda macadka nukhbatul macaarif, oon u wadaa dhammaan macallimiinta macadka nukhbatul macaarif. salaantaas waxaan leenahay ardayda ka timiday macallimiinta dadaalka badan u soo huray, hadday tahay culumta shareecada, qaybta khadka qur'aanka, higaada, culumta kala duwan ee maaragtay ardayda ay la soo dadaaleen. qodobka koowaad ee walaalayaal halkan aan ka soo jeedinayo anaa ku hadlayaa afka ardayda macadka nukhbatul macaarif. doorka koowaad oo ah waxbarashada ma ahan safar sahlan waxbarashadu ama dhib yar, mana aha waxbarashadu wax si fudud lagu helo. waxaa loo soo maraa dadaal iyo caqabado iyo imtixaan kala duwan. waxaa jira maalmo adag iyo maalmo farxad leh, intuba nolosheenna waxay ka bedelayaan oo maaragtaane u noqonayaan cashir uu qofku ka qaadanayo. qodobka labaad anoo soo gebagabeynaya hadalka oo soo goominaya waxaa weeyaan waxaan uga mahadnaqayaa waalidiinta, waalidkaygii halkan aan ka arkayo ustaad cabdishakuur daahir, jazaaka allahu khayr. waalidiinteena dhammaan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaalka aad nooga dalaasheen miisaanka xasanaadka allah idiin saaro. waxaana runtii xaqiiqo ah haddiina waalidiintu dadaal iyo maskax aynay nala garab taagnayn inaynaan maanta halkaas soo gaadhin. waalidiinta sharafta leh, waalidkaas oo inoogu garab istaagay duco, daryeel, dhiirigelin joogto ah, guusha maanta aan gaaranayna xaq ayay inooga mudan yihiin farxaddeyda. qodobka saddexaadeen xaggan kasoo jeedinaya waxay tahay mas-uuliyadda qalinjabiyaasha ardayda macadka nukhbatul macaarif. maanta ma aha dhammaad ee waa bilow. maanta ayaynu qaadnay waddadii lagu baranayay cilmiga diinta shareecada. saas daraaddeed culumta kala duwan ee ardayda hadda ka qalinjabinaysa macadka nukhbatul macaarif, meel kasta oo maaragtaanay diinta ilaahi subxaana wa tacaala qof walba mas-uuliyaddiisa uu ka gaarsiin karo, inay tahay waxbarashadaas maanta laga qalinjabinayo ammaano laynoo dhiibay. haddaan nahay ardayda macadka nukhbatul macaarif oo maanta culumta kala duwan ka qalinjabinaysa, hadday hooyooyin tahay iyo hadday maaragtaane dhalinyar tahay iyo hadday gabdho tahay,
waxaan idin leeyahay dhammaan mas-uuliyaddaasi waa ammaano laynagu ammaanaystay si aan ummadda ugu sii gudbino saas daraaddeed waa inaan si daacadnimo leh dadaal leh akhlaaq leh aynu ilaahay subxaana watacaala ajir iyo xasanaadka ka dalbayno aynu u gudbino waxaana halkan aad ugu mahadcelinayaa mahad aan la soo koobayn al-ustaadi badri axmed cabdullaahi mudiiru macahd nuqbat lilmacaarif oo run ahaantii aad nala soo dadaalay maskaxdeeda aad u soo dhisay wax badanna aanu ka faa'iidnay waxaana halkan al-ustaadi badri uga mahadcelinayaa dhammaan ardayda macahd nuqbat lilmacaarif macalin waxaan ku leenahay jazaaka allahu khayra min jazaa ilaahay subxaana watacaala abaalmarkaaga jannaha ka dhigo ilaahay subxaana watacaala macalimiintaas la soo dadaalaysa ustaadka iyo ardaydana waxaan leenahay idinkana abaalkiina janna allah ka dhigo waalidiin waxaa jirta annagoo yaryar hooyooyin nala qalin jebinaya hooyooyinkaasi waa hooyo hadday wax barashatay bulshaa wax baratay hooyadu markay wax barato bulshaa soo baxaysa hooyo wax baratay guriga waxaa ka soo baxaya xufaadu qur-aan baa ka soo baxaysa maanta waxaan aad ugu faraxsanahay markaan macad ka soo baxaynay aan hooyooyinka arkay waxaan dhahay hadda ayaan dhaqaaqnay ilaahay subxaana watacaala ayna garab istaagay diinta ilaahay subxaana watacaala inaynu ku dadaalno barashadeeda iyo faafinteeda dhammaan aynu ka faa'iidaysano culummadaas inoo joogta qofkuna meel kasta oo uu joogo maanta ilaahay subxaana watacaala baa inoo dhibiireeyay bal haddaa sanadadii hore cilmiga loo soconayay oo loo safrayay maanta waxaan ku helnay gurigeeni inagoo fadhina culummadaas fadhida doctoorka ugu horeeya jazaaka allahu khayr min jazaa oo inoo akhriyay kitaab badan waxaan leenahay dhammaan ilaahay subxaana watacaala haniga jazaaysiiyo waxaanan ku talagilnaa haddaanahay ardayda macahd nuqbat almacaarif intaa iyo in ka badanba inaan ilaahay subxaana watacaala idankiisa iiga si faa'iidaysano waxaanu dalbanaynaa duco insha allah in naloo duceeyo ardayda maanta ilaahay subxaana watacaala jidka ay qaadan kuwii ku guulaysta ee ummadda ilaahay subxaana watacaala badbaadiya ee ummadda ilaahay subxaana watacaala diintooda ku suri ku dadaala ilaahay subxaana watacaala inuu ardaydaas ka dhigo ayaa kolley ducaan ka codsanaynaa culamada haddaan nahay ardayda macahd nuqbat almacaarif كل أنت مقصود بقولنا ومعزتي القفة مقامك وماشي قفة يا مسلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.